dhibaatada haysata Soomaalida iyo xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka sanadka 2026 waxay ku qotontaa dhowr arrimood oo isugu jira amniga, siyaasadda iyo arrimo bulsho. Mareykanka wuxuu weli door muhiim ah ku leeyahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo tababar iyo taageero siiya ciidamada gaarka ah ee danab. Inkastoo taageeridani ay muhiim u tahay dawladda, haddana waxaa jirta walaac laga qabo dhibaatada dadka rayidka ah ka soo gaara duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Mareykanka ayaa aad u kordhiyay duqeymaha cirka tan iyo markii uu bilowday sanadkii 2025. bishii Janaayo 2026 oo kaliya Mareykanka wuxuu fuliyay dhowr duqeymood oo lagu beegsaday saldhigyo iyo warshado hubka lagu sameeyo oo ay leeyihiin Al-Shabaab iyo Daesh, gaar ahaan gobolada Jubbada Dhexe iyo Buuraha Goolis. Inkastoo Mareykanku oo muddo dheer tababari jiray ciidanka commandoska ee danab, waxaa soo baxay warar sheegayo in Mareykanka uu hakinayo qaar ka mid ah taageeradii maaliyadeed iyo sahaydii uu sii jiray cutubyadan. Sababaha loo aaneeyay hakinta ayaa ah walaac laga qabo masuqmaasuq iyo maamul xumo dhinaca sahayda ah, gaar ahaan raashinka ciidanka. Kordhinta duqeymaha ayaa dhalisay walaac xoogan oo ku saabsan dhibaatada dadka rayidka ah ka soo gaarta weeraradaas. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo goobjoogayaal ayaa soo wariyay dhimashada dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur intii lagu guda jiray howlgalladii ka dhacay dhamaadkii 2025 iyo bilowga 2026. Mareykanku wuxuu inta badan sheegaa inaysan jirin dad rayid ah oo ku dhintay duqeymahaas, balse waxay joojiyeen faahfaahinta dhimashada dadka ka soo gaaray intii ay wadeen duqeymaha si ku meel gaar ah. Howlgalladii ugu dambeeyay ee Janaayo 2026 waxay burburiyeen warshadihii ugu weynaa ee kooxda u qaabilsaneed diyaarinta qaraxyada ee ku taalay degmada Saakow, halkaas oo lagu dilay 18 xubnood oo isugu jira dagaalyahanno iyo injineero. Inkastoo ay jiraan caqabado dhinaca maaliyadda ah, haddana qorshaha Mareykanka ee tababarka ciidanka danab waxaa markii hore loo qorsheeyay inuu socdo ilaa sanadka 2027 si loo dhiso awoodda ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Caqabadaha ka taagan siyaasadda iyo maamul dhisidda Soomaaliya ee sanadka 2026 waxay u qaybsan yihiin dhowr qodob oo saameyn weyn ku leh xasilloonida dalka. Madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu ku egyahay May 2026, waxaana jira khilaaf xoogan oo ka dhashay isbeddelka nidaamka doorashada iyo dastuurka. Isbahaysiga mucaaradka iyo maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland ayaa ka hor yimid isbeddelkaas, iyagoo ku eedeeyay dawladda dhexe inay rabto inay awoodda isku ururiso. Waxaa jira walaac laga qaba in ciidamada Soomaaliya ay ku kala qaybsan yihiin hadba dalka tababaray, taas oo keeni karta inaysan jirin hoggaan midaysan. Tusaale ahaan, bishii Janaayo 2026 dawladda Soomaaliya waxay joojisay heshiisyadii dhinaca amniga iyo ganacsiga ay la lahayd Imaaraadka. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa mushaarka iyo taageeridda kumanaan askari oo Imaaraadku maalgelin jireen. Turkiga wuxuu weli sii wadaa tababarka saraakiisha, halka Mareykanka uu xoogga saaraa ciidanka danab, balse hakinta taageeridda maaliyadeed ee danab bilowgii 2026 ayaa abuurtay hubanti la'aan cusub. Xiriirka u dhexeeya filla Soomaaliya iyo maamulada sida Puntland ayaa gaaray heerkii ugu xumaa, iyadoo Puntland ay hore u hakisay wada shaqaynta dawladda dhexe. Sidoo kale, dhaqdhaqaaqyada dawladda dhexe ka wado deegaanada qaar sida booqashadii Laascaanood ee Janaayo 2026 ayaa loo arkayaa kuwo kicin kara xiisadda militariga iyo kuwa siyaasadeed. Kala guurka howlgalka Midowga Afrika wuxuu wajahayaa caqabado dhaqaale iyo mid hoggaan, taas oo keentay in dawladda Soomaaliya ay heshiisyo laba geesood ah la gasho dalal gaar ah, taas oo sii kordhinaysa saameynta siyaasadeed ee shisheeyuhu ku leeyihiin ciidamada. Ismariwaaga siyaasadeed iyo hufnaan la'aanta hay'adaha amniga ayaa loo arkay inay fursad siinayaan Al-Shabaab, kuwaas oo la sheegay inay kordhiyeen weerarada intii lagu jiray bilowga 2026.